السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توناكسن داوديال halkan waa xulqa wararka kuna soo dhawaada wararkeena qodobadan oo caawa ku soo qaadi doona barnaamijyadeedkana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay Axmed Madoobe oo garab lama filaan ka helay dawladda waddanka Kenya iyo xogta kulamo culus oo Axmed Madoobe uu ka wado magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulamadan yaa ula qaadanaya maxaa ka jira in beeroosaadkiisa ay sidoo kale ay qayb ka tahay xubnaha uu magaalada Nairobi ku kulmayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaan idin wadaagi doonaa xogta wada hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe in dhowrkii saacadood la soo dhaafay warbaahinta ay qoraysay taliyaha sirdoonka dalka Kenya oo arintan gacan lixaad ka qaadanayo waxa ka jira kulamada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya macluumaad dheer oo arintaasi ku aadanayaan idinayna si guud qaybtan waxaan ku faaqidi doonaa kulamada oo uu madaxweynaha maamulka Jubbaland uu ka wado magaalada Nairobi ka hortaga oo uu Axmed Madoobe ka hortagayo New Jubbaland iyo qodobada kale ee la xiriira wada hadalka dawladda federaalka iyo Axmed Madoobe soo dhawaada saaxiibayaal fadlan daawada haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo biirin muuqaalka like saar sidoo kale subscribe saar barteen YouTube ku wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaha leh oo goro balka ku soo baahino waa hagaag aan ku bilaawno wararkeena waxaan ku bilaabi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay wada hadallo u bilowday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Axmed Madoobe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la soo warinayaa in ay u bilowdeen wada hadallo oo ay dhaxdhaxaadinayso dawladda waddanka Kenya sida ay ogaatay warbaahinta haddaba xogo hoose oo aynu helnay ayaa sheegayso in qadka taleefanka ay ku wada hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Axmed Madoobe wada hadalkan ayaa waxa fududeeyay taliyaha sirdoonka ee dalka Kenya Nuurdin Yuusuf Xaaji oo horaanta toddobaadkan sida wararkan hore baan ku baahinay gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland Nuurdin ayaa safar qarsoodi ah ku tagay Kismaayo sidii la wareejiyo markaasi la socday arintan ay xaqiijiyeen labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadleen ama wada hadaladoodu ugu horeeyay waxa ay ku qaateen qadka taleefanka ah oo mid kooban aha oo taliyaha sirdoonka Kenya waxa uu ku doonayaa in uu bilowdo ama bilow u noqdo wada xaajoodyo dhaxmarayo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland marka la eego wada xaajoodkan macnaha wicitaankan qadka taleefanka ah ee Nuurdin Xaaji oo taliyaha nabad sugidda ee Kenya ah uu dhaxdhaxaadka uu ka yahay oo Xasan Sheekh Axmed Madoobe ay yeesheen waxa uu barbilow u yahay la leeyahay wada hadallo qoto dheer oo dhaxmari doono dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland haddaba kadib hadalka taleefanka ah ee labada madaxweyne waxa Axmed Madoobe uu gaaray magaalada Nairobi khilaafka Xasan Sheekh Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka soo bilaabay sidaan ognaaba shirkii madasha wada tashiga qaran ee Axmed uu ka baxay 2024 bishii Oktoobar hase ahaatee dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland labada dhinac waxay qaadeen tallaabooyin kala duwan oo ay xitaa dagaal gacan kaala lagu dhaxmaray raas Kamboni ilaa iyo Gado ayuu dagaalkoodu ka dhacay balad xaabo laakiin hadda dawladda waddanka Kenya ayaa dadaalkii ugu xooganaa waxay ku bixinaysaa in labada dhinac dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland ay heshiyaan Axmed Madoobe ayaa xilligaasi waxa uu ku doodayay macnaha markii uu dagaalku kula jiray dawladda Soomaaliya in doorashooyinka maamulada ay gooni u qabsadaan halka filan Soomaaliya inay ku adkeysanaysay in doorashada ay hal mar wada dhacdo oo doorasho fiican dalku ay ka dhacdo marka tan iyo markaasi wixii ka dambeeyay khilaafkooda ayaa isku bedelayay dagaalo culus oo ka dhacay raas Kamboni dabeeqadii 2024 iyo balad xaabo Luulyo 2025 taasoo oo keentay in ciidamada labada dhinac ee xadka Kenya ay ka talaabaan yani dhinacaan in mar la jabiyo ciidankooda oo xadka Kenya ka talaabaan markay ciidanka Jubbaland balad xaabo lagu jabiyay ee ciidankii dawladda ee raas Kamboni ku daabashay iyaguna xadka Kenya ka talaabaan si kastaba noqotay waxa isweydiin mudan maxay dawladda waddanka Kenya ay kaga dan leedahay in xilligan xasaasiga ah ay dhaxdhaxaadiso labada dhinac iyadoo la og yahay in horay ay uga markaasi ay diidmay ka muujisay in arintan ay gasho haddaba ma loo fasiri karaa baa la leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu marayo heer u aqbalay dhaxdhaxaadinta la dhaxdhaxaadiyo isaga iyo Axmed Madoobe waa su'aalaha ay dadka isweydiinayaan mise dawladda Kenya ayaa ka walwalsan qorshaha dawladda dhexe ee Soomaaliya ee dhismaha Jubbaland cusub
ee laga dhisayo magaalada Garbaari oo qorshaha dawladda Soomaaliya wado marka arintan ayaa dhowrkii saac la soo dhaafay si weyn loo hadlayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe Nairobi ayuu hadda ku sugan yahay kulamo kala duwan ayuu ka wadaa kaliya wada hadalka kuma jiro oo waxa uu la kulmayaa beeloosaadkiisa isaga oo odayaal dhaqan oo dhawaan Nairobi ku shiray kuwaasi oo taageeray Jubbaland cusub ee Garbaari laga dhisayo ayaa uu la kulmayaa isaga oo arintaasi kala hadlay marka dadka qaar waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya waxay muujisay dabacsanaan oo maamulkii ma aqoonsani ay lahayd ay wada hadal u gashay waa waxlaha ay dadku qaar isweydiinayaan halka dadka qaarna ay leeyihiin Axmed Madoobe miyaa xogaa dabacsanaan muujiyo waxa uu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo Jubbaland marka waa isweydiinada taagan wada hadal ayaa dhici doono madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe Nairobi ayay ku kulmi doonaan wada hadaladana way bilowdeen hadda Axmed Madoobe Nairobi ayuu ku sugan yahay saraakiil sirdoon oo Kenyana ayuu la kulmi doonaa ilaa ay wararku qaar ay gaarsiinayaan in madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto la kulmi doono beeloosaadkiisa la kulmaya arrimahaas oo idil ayaa laga wada hadlay marka wada xaajoodyadan bilowga markaasi u bilowday dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Jubbaland inta ku aad hoos ugu gudaana qaybtan waa naga tan madgeliyo